de siyaasadda dadka ayaan horaa dad badan oo idin ka mid ah laga yaabo qaar inay halkaan fadhiyaan yaa waa markaan mucaaradka ahayn aad mucaaradka ula yaabi jireen marka waxaan bari jiroon dhihi jiray mucaaradka maanta waa maxaafidka berri maxaafidka maantana waa mucaaradka berri hadda marka qolaan ku wareejinay baryahan marka ninkan odaga ah oo saaxiibkay ah waxaa ka mid ah wariyaasha baarlamaanka marka waa ay warsadaan oo kaalmo wada hadlaynin maxaa hadlaynaa aniga hadda shaqada qaranka la iga sugayaa hadalka rag kale laga rabaa waxaan rabaa hal arrin inaan idiin sheego mucaaradku qaran dumis ma aha mucaaradku caay ma aha ceeb ma aha waa qayb ka mid ah dowladnimada haddii shalay marka in badan oo idin ka mid ah aad takfiiriyiin aydeen oo noo aragteen qaran dumis inaan niman xun nahay inaan wixnahay ma ana ahayn waxa nala qaldanaan sheegaynay adinka inaan qaar badan oo idin ka mid ah idiin hadlaynana waa laga yaabaa marka hadda midka soo socdana uma arki doona anaga waa iska normal inuu mucaarad yimaado wax caadi oo dowladnimada systemkeeda iyo siyaasadda ku jirta way uma arki doono inuu yahay qaran dumis waxaan arkaynaa qayb kale inuu aasaasayo waxaan rabnaa inaan la sii wadno marka hadda ka hor marka waraysi la ila yeeshaa waxaa la yidhi nin ardagayga aad ii question gareeyay marka jawaabteeda waxaa ka mid ah I'm still teaching him weli waxaan barayaa in iskoolka bis maahayn waxbarashadu the other side of the story marka halkan waxaan imaan jiray anigoo maxaafida anigoo horta aan labada midna ahayn aan halkan joogi jiray oo madaxdeeda ka mid ahaa shaqaalaheedan ka mid ahaa madaxdeedan ka mid ahaa anoo dowladda ku jiro maxaafidaan imaan jiray anoon dowladda ka tirsanayn oo mucaaradahan imaan jiray haddana anoo maxaafidaan idinku soo laabtay odawaa waa ninkaas duruufuhu ima bedeli doonaan